magacaygu waa Farxaan Xaashi Barre arday wax ka barta Jaamacadda Salaam kulliyadda daawada iyo qaliinka last year internship program waxaan rabaa maanta inaan wacyigelin aan ka bixiyo xanuunka macaanka ama diabetic-ga xanuunka macaanka waa xanuun chronic ama qofka in muddo ah la noolaado una baahan long term management in loo helo xanuunkan waxaa la yiraahdaa adduunka oo dhan uu ka jira waxaa la yiraahdaa 25 sano u dambeeyay xanuunkan maxaa la dhahay uu laba jibaarmay halka maxaa la dhahay maanta oo maraayo waxaa la noolaa la yiraahdaa 500 oo milyan oo adduunka hadda la nool oo xanuunkan qabta xanuunkan marka waxa loo qaybiyaa laba nooc maxaa la dhahay primary iyo secondary primary-ga waxaa la dhahaa waxa lagu sheegaa inay yihiin diabetic type 1 ama nooca koobaad iyo diabetic type 2 nooca labaad halka kuwa kale ay yihiin maxaa la dhahay secondary sida gestational diabetic oo midka ku dhaca hooyada uurka leh iyo others kuwa la yiraahdo nooca koobaad oo kale waxaa la yiraahdaa inta badan dhibaatada waxay ka jirtaa ganaca inuu soo saari waayo insulin oo soo saari waayo si sokorta dhiigga looga xareeyo salska loo geeyo waxaa la dhahay oo looga soo saaro maxaa la energy ama ATP shidaalka jirka uu ku shaqeeyo maxaa inta badan waxaa lagu arkaa waxaa caruurta oo caan ku yahay iyo dadka inta badan 30 sano ka yar caruurtaadaas oo inta badan caan ku yahay wuxuuna ka yahay markii loo fiiriyo xanuunkan 5 ilaa 10 boqolkiiba oo ka yahay waxaana inta badan factors waxa jira saameyn ku leh sida genetic factors environmental triggers iyo maxaa la genetic factors iyo environmental factors saameyn badan ku leh nooca labaad type 2-ga waxaa la yiraahdaa asaga dhibaatada waxay ka jirtaa insulin resistance ay jirto ama insufficient insulin production insulin fiican in la soo saari waayo ama in saliskii insulinti ay qaado waayaan oo resistant uu ka jiro noocan inta badan wuxuu caan ku yahay dadka waaweyn oo caan ku yahay 40 sano iyo ka badan waxaana la yiraahdaa waa nooca ugu badan oo wuxuu gaaraa la yiraahdaa 90 ilaa 95 boqolkiiba oo ka yahay waa nooca inta ugu badan dadka ay la nool yihiin asaga waxaa jira waxaa risk factors oo noocan maxaa la dhahay kiciya ay ka mid yihiin qofka maxaa la dhahay oo cayilan oo kale obese qofka physical inactive oo aan maxaa la dhahay soconin ama orodka badan aan sameynin oo maxaa la dhahay aan exercise waxaas aan sameynin routine life-kiisa ay yihiin inuu maxaa la dhahay gaari saaran yahay inuu xafiis fadhiyo somehow qofkaas oo kale khatar ugu jiro sidoo kale khatar ugu jiraan dadka oo maxaa la dhahay qabaan xanuunada sida cholesterol-ka oo kale qofka hypertension-ka qabo asagana wuxuu ugu jiraa inuu xanuun ku develop gareeyo waxaa jiro calaamado qofka oo isku arki karo oo maxaa la dhahay soo noqono gestational diabetes-ka kaas wuxuu ku dhacaa inta badan hooyada uurka leh ku dhacaa maxaa la dhahay waana inta badan hooyada markay dhasho ka bacdi oo kale muddo maxaa la dhahay dayarka bacdi way ka fiicnaadaan laakiin hooyada waxa lagu waaniyaa mar walba inay check up sameyso intay uurka leedahay oo ay dhakhtarka la xiriirto oo la socoto si looga hubiyo xanuunkeeda loola socdo sabab ah yeelay wuxuu saameyn ku yeeshaa ayada iyo cunugiiba saameyn ku leeyahay